بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في اليوم وحان جعلها إن أنك هدلو warbaahinta waxaa la yidhaahdo ama social median ama al-iclaam baan kaga hadlayaa. mawaadiicdan aan ka hadlayo oo dhanna waxaan aniga uga gol leeyahay ummaddeena soomaaliyeed 40 sano dagaal sokeeye iyo qax iyo burbur oo hadda ka soo kabanayso siday ummaddaasi hore ugu socon lahayd ayna gadaal ugu noqon lahayn, si aan ummaddaas mar labaad haddana loo duminin oon fidno looga dhaxurinin ayaan mawaadiicdaas oo dhan ayaan uga hadlayaa. marka dhowr qodob baan u kala qaadayaa warbaahinta ama iclaamka waxa la yidhaahdo. qodobka ugu horeeyo waxaa weeye warbaahinta ama iclaamka ama miidiyaha sida culumta kaleeto unbay la mid tahay oo kulligeen waxaan wada ognahay in jaamacado loo furay oo faculty ama kulliyaad oo iclaam la yidhaahdo in ay jiraan, kuwaasoo lagu barto qawaaniinta iyo edebta iyo akhlaaqda iyo waxyaabaha laga doonayo. sidaa daraaddeed ma aha qofkii qalin qaado oo far soomaaliga bartaba inuu iska hadlayo ma aha. marka sidaa daraaddeed waxaa looga baahan yahay sida ummadaha kaleba ay yihiin dowladda soomaaliyeed. waxaanu ognahay qawaaniin yaa ka taalla oo la og yahay. waxaa loo sameeyaa ururo oo ay leeyihiin dadkaas oo warbaahinta ururo ay leeyihiin baa la sameeyaa. waxaa loo sameeyaa qawaaniin, waxaa loo sameeyaa waxyaabo la yidhaahdo sida aan sheegnay shaqada iyo akhlaaqda ay doonayso oo looga baahan yahay oo qofka uuna ka tallaabsan karin ayaa looga baahan yahay. waxaa loo baahan yahay qofka ka shaqaynayo in imtixaano uu galo oo imtixaanada uu ka barmooso. intaasoo dhan waxay ku saabsan tahay warbaahinta. marka wasaaradda warfaafinta waxaa looga baahan yahay waxyaabahaas oo iclaamka oo dhan ama telefisyoon ha ahaado ama idaaco iyo raadiyo ha ahaado ama ha aadeen waxyaabahan kale ee xiriirka bulshada loo bixiyey oo youtube-ka iyo facebook-ka iyo wixii la halmaado. waxaasoo dhan waa in loo dejiyo qawaaniin. ma aha qof walba intuu meel iska furto inuu dadka uu caayo oo uu ku caraatamo oo uu qadfo oo wuxuu rabu iska yeelo. waxaanu ognahay hadda adduunka buuqa ka taagan waddanka faransiiska in ay nabigeena udgoon ay meel kaga dhaceen iyagoo ku andacoonayo waa xorriya. marka xorriyo wax la yidhaahdo oo iska furan ma jirto. waxaa la yidhaahdaa xorriyadaadu waxay ku dhammaanaysaa qofka kale xorriyadiisa meesha ay ka bilaabanayso. taasi waxaa weeye sidaa weeye. marka waxaa looga baahan yahay dowladda in ay qawaaniin u dejiso, akhlaaq inay u dejiso. sidaas daraaddeed adduunka oo dhan waxaa la ogyahay qofka hadda waxaan ka maqlayaa yacnaa miidiyaha iyo facebooka iyo rag dhalinyaraha oo soo fadhiisanayo oo rag madax ah oo dowladda ka mida ama maba ahee maamulada gobollada ka mida yacni ku caraatamayo oo qadfayo oo caayayo oo haddana uu iskaba joogo. marka taasi haddi ma aha meelay ka soconaysa ma leh. ummadda in loo qaato buris oo la dumiyo in la ogolaado ma aha. waa kan oo muxuu ahayn ay yidhaahdaan carabta tixyaro oo shicira ay yidhaahdaan mataa yabluqu lbunyaanu
يوما كما له إذا أنت تبنيه وغيرك يهدم ومعنى هذا أدايت أي تهي هداد معد إن تقول دستو ومركي وحوغا أساس انت أسميسو دور رقحامد دور قول كيتا سارتبا midkale intuu yimaado buris u qaato uu dhulka la simo gurigaasu goormuu dhammaanayaa macnaheedu saas ka dhigato ummadduna waa sidaa gurigaa la dhisaya weeye haddii cidi buris u haysato oy burburinayso horay uma soconayso taas marka waxaa weeye waa waxa looga baahan yahay midda kale waxaa weeye dhallinyarada oo furatay muxuu ahaay telefisyoonada ama facebookyada wararka soo tabinayo waxaa weeye wararka Soomaali waanu jecelahay inaan la soconno marka waxaan iyagana kula talinayaa inaynan muxuu ahaay fitna afuufayaal inaynan noqonin oo wax maanta oo dhan isku diro iyo balaayo laga sheekeeyo iyo waa la isdiriray iyo waa la iska hor yimid iyo waa la baaba'ay war ummadda inay tafaa'ul wax la yidhaahdo iyo wanaag inay dadku u sheegaan ayaa looga baahan yahay midda kaleeto waxaa weeye waa in tababar loo furo waxaa weeyaan wixii ay niqaabadii ama wixii ay samaystaan ururkii ay samaystaan waa in tababaryaal loo furo dadkaasoo dhan waxaa weeye hadda markii oo akhbaarta ay bilaabaan dhallinyarada oo ay dur maraan marka aad ka sugaysa marka inaad warkii ay kuu bilaabaan oo ay kuu dhammeeyaan warkii ugu horreeyey qodobkii ugu horreeyey ayuu kolba dhinac ugu xawaaraynayaa hadal uu yidhi buu 3 iyo 4 goor ku soo celinayaa ma kala garanayaan khabar ama war iyo faallo iyo falanqayn ma kala yaqaanaan waxaan marka waa in la habeeyo waa iyaga ugu yaraan waa dad dhallinyaro ah may wax bartaan waa dad dhallinyaro ah may dadka wax bartay oo xataa Soomaalideena ka mid ah oo u shaqeeyo idaacadaha oo nimanka reer galbeedka sida BBC London oo kale may muxuu ahay ku daydaan oo khabarka aan 3 daqiiqo aan dhaafaynin iyo sida muxuu ahay Voice America oo kale sida xataa muxuu ahay inaga dhexdeena qoladan oo universal la yiraahdo iyagoo naftooda ilaa xad ma way tababaran yihiin marka waxaa la doonayaa dhalinyarada iska dalgalmayso oo xataa kuwa wanaagsan ee dalka jecel ee khayrka ugu yeeraya dadka naftooda ma sugi kartid ilaa ay warkii ay kuu sheegeen kii ugu dambeeyey ma sugi kartid maxaa adduunkan qof meel kuu fadhinayo male marka sidaa daraaddeed waxaa weeye dadka dhalinyarada aho war tababarta oo markaad wararka noo soo baahinaysaan waxaad yeelaysaan warka sheega warka waxaa waa la yaqaanaa waa jaamacadaha lagu dhigaa waa khabar yacni war dhacay iyo xilliguu dhacay iyo meeshuu ka dhacay iyo siduu u dhacay intaasaa la sheegaa waana laga socdaa ee lama faalleeyo lamana tafatiro ee tafatirka iyo faallada iyo muxuu ahay way dambaysaa taas marka taana waa in muxuu ahaay sidaa loola socdo oo ay waxaani uu noqdo shay walba meeshuu ku habboon yahay in la dhigo weeye waanu u soo noqon doonaa si aan hadda soo sheegay waxaad arkaysaa niman dhallinyaro oo facebooka furtay oo maantoo dhan ummadda say u dumin lahaayeen war qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba waa dad aad arkayso oo yacni islaamkii garanayo oo bismillaahi raxmaan raxiim ku bilaabay alxamdulilah wasalaatu dhahayo oo saasoo kale ah markaasaa waxa la wixii ummaddan dhulka la simi lahaana wax uu ka dhowrsanayaan ma ay jirto qur'aanku waa kan ilaa awalaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun wa 40 sanaan tiih ku jiraye nimanka hadda soo afuufayo qabyaalad iyo ree hebel baa xagga ka baxay kuwii kalena kuwaaba sii ordayo war waxaan ummaddaha lagala joogo taas waa midda waxaan marka hadda iyadana ku siinayaa
luqadeennii soomaalida nafteedii dadkan oo warar ka shaqaynayo miidiyaha ma yaqaanaan luqa soomaali waxay waxyaabada badan oo lala yaabo oo khata ah oo sida xaqiiqada ah xataa madaxdii dowladda ay kaga dayatay yacni iyay kaga kee lagaga dayda anu ma garanayo ma dowladaa lagaga dayday mise dowladdaa dhallinyaradan ku dayatay ma garanayo laakiin wax oo gef kuwa afkeena soomaalida oo aan sax ahayn yaad maqlaysaa ugu yaraan muxuu ahaaye 4 shay baan iyaan tusaale idinku sheegayaa waxaad maqlaysaa dhalinyaro markay wararka sheegayaan mid ku odhanayo maalan waxay odhanayaan yacni wafdigii hebel ahaa ama qofkii hebel ahaa ama madaxdii hebel ahaa xalay waxay ka baqooleen meel hiblaayo u fiirsa marka kelimatu way baqooleentaa ninkaa dhallinyarada way baqooleen baa dhegtiisa ku soo dhacday ma ogiye way baqooleen maxaa la yidhahdaa ma uu garanayo baqoolo sideedan soomaali waxay u taqaanaa qofku markii uu safro ama uu socdo waqti qoraxdu markay isxidho oo waranwiirada la yidhaahdo oo duhurkii ah oo dhaan dabagaaluhu uu isqabto qofkii ka dhaqaajiyaa waxaa la yidhaha wuu baqoolay ee qof casar tegay ama subax hore baxay ama habeen socday wuu baqoolay lama yidhaahdo taasi waa midda kaleoo beryahan anigu aan aada ula yaabo marmarna aaban kaba yar xanaaqo waxaa ka mid ah war baa la sheegayaa markaasaa waxay odhanayaan ulajeedka warkaas ulajeedow maxaa tahay marka ulajeed muxuu yahay noo fasira bar waxaa luqada soomaalida sida ummadaha kale oo dhan luqadooda ayay fasiix u tahay sida ay aniga carabigan anugu garanaya iyo qawaaciddiisa sida ficil iyo faacil iyo mafcuul iyo luqa soomaalina ay leedahay iyo qof hadlaya iyo qof lala hadlaya iyo oo muxuu ahaay waad ogtihiin luqada soomaalida aad bay u xeel dheer tahay aad bay muxuu ahaay hal shay oo 4 iyo 5 magac labaad arkaysaa luqooyinka ugu xoog badan ayay ka mid tahay xataa raxmatullaahi calayhi sheekii la oran jiray sheekh xariir wuxuu sheegi jiray inay xataa luqa carabiya inay luqadeennu ka fasiixsan tahay yacni kuma raacsanin sidaa laakiin luqadeennu waa fasiix marka sidaa daraaddeed ulajeed waxay tahay lama fahmayo ulajeedo ayaa la yidhaahdaa marka ulajeedo markaad tiraahdo meeshaa waxaad ka garanaysaa qof hadlay waxaa weeye waa qofkii oo faacilka ahaa iyo hadalkiisii oo ficilka ahaa iyo wuxuu tooganayay abbaarayay oo ulajeedada la leeyahay laakiin ujeed wax alla waxay tahay anuu ma fahmaya haddii ay jirtana waxaa naloo faa'iiday way fiican tahay taasna iyada waa taa waxaaba ka sii daranba oo lala yaabay cudurkaas halaaga ee dilaaga ilaahay insaaniyadoo dhan ha ka kor yeele ee la yidhaahdo covid-19 ay yidhaahdaan ama corona yaa waxaad maqli nin madaxdii ah qof madax ah ama nin oo weriye ah oo dhahayo safmar waxay awowyaalkiin iyo aabbayaalkiin u yaqaanaan ma taqaanaan safmar cudurkani safmar ma aha cudurkani qaatil weeye waa dilaa safmar waxaa la yidhaahdaa weydiya odayaasheenna weydiya dadka baadiyaha cudurka ileen dadkeenna ma ayna haysan jirin takhaatiir iyo xoolaha maxaa baytariya wax la dadka oo takhtarka xoolaha iyo wax u daweeyo kolba waxaa iman jiray saf socdo oo cudur ahoo xoolaha ku dhaco ama dadkaba ku dhaco marka marmarna intuu yimaado yuu xoolihii buu gumaadayaa cagta wada taagayaan oo dhimanayaan marmarna waxaa si fudud buu u imaan waxoogaa yar way jiriryocoon way yar qandhanaysaa xoolihii markaasaa yay ka kici waa la farxi waxaa la leeyahay sanadkan cudurkii safmar buu ahaa yacnaha mid culus oo wax dilay ma ahayne mid fudud oo yar kor maray buu ahaa laakiin in cudur dilaa ah
ومليون روح سي مرة إلا يراو صف مر وحاوي ولقضي صومالية oo si loo qaloocinay way ay ila tahay waxaan marka aniga ku soo gabagabeyn lahaa hadalkayga rag waxaa jira Soomaaliga ku xeel dheer aadna u tafatiro oo aad ku mid yahay waxay akhuuna idaa jaa saad ogtiin iyo rag la mida iyo xataa ninka dhalinyarada ee leeyahay waxaa weeyaa Mustafa Abdullahi Ali Mustafa Dheeg ee madaxweynaha dowladda Jabuuti ee walaalahana ay madaxweynahooda oo intaasoo shir u qabtay si luqada Soomaalida iyo adabkeeda iyo wax isugu dubarido waragaasow waxaa weeye luqada waardiyaha laga qabto yaan la dilin waardiyaha laga qabto intaas ayaan muxuu ahaay ka dhihi lahaa xagga warbaahinta hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh